wadooyinku waxay muhiim u yihiin kobaca dhaqaalaha ee noloshan casriga ah taas oo aanu sinaba uga maarmi karin dal kasta oo doonaya inuu sameeyo kobac dhaqaale. halkani waa wadada isku xidha deegaanka Kalabaydh iyo magaalo xuduudeedda Wajaale oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee muhiimka ah ee Somaliland taas oo mararka qaarna loogu yeero dekada qalalan. sanado badan waxay ahayd mid aan helin dib u dhis iyo dayactir taas oo ay dhibaato kala kulmi jireen gaadiidleyda isaga kala goosho wadamada Somaliland iyo Itoobiya iyo waliba kuwa u kala safraya gobolada galbeedka Somaliland. hadda waxaa dhammaaday 19 kiiloomitir oo ah waddo casri ah taas oo la jaan qaadaysa hanaanka caalamiga ah ee wadooyinka waxaana ay qayb ka tahay mashruuca Berbera Corridor. jidkani waxaa sidoo kale ka faa'iideysanaya dadka degan deegaanada ku teedsan ee uu sii marayo kuwaasi oo si fudud ugu xidhmaya magaalooyinka waaweyn ee Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa. faa'iidada ay noo leedahay wadada markaanu eegno faa'iidooda maanta wada iyo wada la'aan waa nolol iyo nolol la'aan gaar ahaan isticmaalka gaadiidka bajaajta guriga hore wadada ma ku dhibanaan jirnay laakiin imiga wadada waxa loo sameeyay aad iyo aad u wanaagsan waxaan u mahadnaqayaa cid wadada noo sameysay gaar ahaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. wadadani waxay sidoo kale muhiim u tahay isku xidhka wadamada Djibouti, Somaliland iyo Itoobiya taas oo muujinaysa muhiimadda ay leedahay.